nin masiixiyaho qolyahan Yurub joogo nin muslina ay saaxiib ahaayeen ayuu guriga ugu yimi ninkii muslimka ahaa isagoo ninka gaalka ah masiixiga ah iyo inantiisa iyo xaaskiisa ayaa la joogay ninkii wuxuu u keenay xoogaa cinab buu u keenay ninkii muslimka ahaa jaarka la ahaa kolkaasuu cinabkii yara cunay bahalkan canab baynu inagu waa cinab kolkaasuu khamrigiina u soo shubay de sharaabkiisa iyo shaahiisa ahaa kaasuu yiri ma kan macab iska daa iga daabul kan cinabkan u bal cunaya niyo muslimkiinaas waa waalantiin as hadihi min hadihi bahalkan aad imika diidaysa khamrigani wuxuu ka yimi cinabkan aad cuntay marka cinabkiina waad cuntay asalka ahaa bahalkii faraciisa ahaa ee khamrigiina waa diid ninkiina de wuxuu ahaa nin wax garanaya isaguna wuxuu yiri هذه من هذه حاس كاغن بعد شيء إنت هذا مكو حلال بس ده حاسك حلال كوجتاي فبهت الذي كفر إنه صاك لقادي وحول هذه من هذه إنت نم بعد شيء وري إسلام تنا إنت ند شيء مركا إنت نم يطفول يوات يجيب السيد إسلام توكل دم يب هذا بهذه من هذه تنين واتن وكلب marka waxba la yaabinaha iran intani tanay dhashay de taniba tanay dhashay soo kuwa labadani ku ag fadhiya ma isugu kaamid ba ma wallahi isku mid mahab ninkii waa shahaato oo islaam aad badi qancisay in aqli wanaagsan baad aqli iyo cilmi baad keento fakana dhalika bisabab islaamihi arintaas islaamnimadiisa bay sabab noqotay macna qof canaada baanu noqonin waa laba shay oo isku mid waxaan ku kala saara ma garanayo de waa intee malaa kristanku si yara noolaayeen imika iyagoo magaca sheeganayay maxaarimtoodii ehelkooda iska waxeeyaan imika ama iskaba guursadaanba oo midkoodooda ayaad arkaysaayoo leh warninku hadduu geed beero oo midhaysto ma isaga xaq kula inuu cuno mise dadka kale inantiisu u jeedaa ogow way jiraan qaar caynkaa ku doodaya laakiin malaa waa intay wax si yara siqsiqayaan